munaasabada xafladani oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay oo ka qabsoontay barxadda banaanka hoose buurta Sancoballe ee duleedka degmada Dambal ayaa waxa lagu caleemasaariyay isla markaasina lagu caanashubayay suldaanka cusub ee beelweynta Cali Makaahil oo guud ahaanba ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay xukuumadda deegaanka Soomaalida oo iskugu jiray xildhibaan heer federaal kuwa heer deegaan maamulka gobolka City iyo sidoo kale maamulka degmada Dambal kuwaasi oo dhamaantood baa ka soo qayb galay madasha ayna yimaadeen mas'uuliyiinta ugu sareysay ee maamuladaasi agista kale waxa iyaguna ka soo qayb galay salaadinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo guud ahaanba odayaal dhaqameedyada deegaanka ugu waaweyn oo iyaguna goobjoog ka ahaa madasha iyadoo geesta kalena ay ku lamaanayeen isla markaasina ay madasha qayb ka ahaayeen xisbiyada mucaaradka ay ka jira dalka madasha oo isla markaasina halkan lagu ibafuray ay hadalkan iska daba qaateen mas'uuliyiinta iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwan salaadinta waxgaradka aqoon-yahanada ayaa waxa ugu horeyn baa hadalka furay dadweynaha quruxda badan ee reer Dambaleed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkan caleemasaarka ah ee ummadii Soomaaliyeed dawlad iyo macaarid iyo muxaafid iyo oday dhaqameed bay isugu yimaadeen inaan ka soo qayb galo aniguna hadal badan ma yaalo waa madal dhaqan waxaan leeyahay unugaas suldaanka aynu caleemasaareen ee filfila wixii waana iyo duca lagu siiyay ilaahay ha noo aqbalo ilaahayna ha noo weeleeyo in yar baan ku dari wixii nabadda Dambal ee beelaha walaalaha dhaxdooda ahaa odayaashii iga horreeyay baa ku dardaarmay beelaha Samaroon ama Gadabuursi si guud arrin aan u wadaa jira maanta arrinkaas ugaas Cabdirashiidna waan isku ogey dagaal baa wuxuu ka socdaa tulli iyo jinacsani maalin walba dad muslimiina wiil iyo abtigii ay isdilayaan intuu dagaalkaasi socdo beelaha gobolka Faafan degan ceebtaas way noo taagan tahay suldaan filfil iyo salaadiinta kale ee beesha Gadabuursi meesha fadhida iyo madaxda dawladeedba waxaan leeyahay hawshaasi cambaar bay nagu noqotay taariikh xumay nagu noqotay aakhira waabay nagu noqotay بريتول إلهنا وينويدين دونا ضدك مسلمين ويلي أبتيجي ديجو قدادنايو بلنتي هو ردمات أنت دمبين إنه قربها يسقبسنو هاوشا وحكا قبنو أيام بيشا مدح يدولد يدقن به إنه قرب عن سكسين عن هاوشا وحكا قبن عندي سؤال وشي حفلة نقولها بدن له ويقول الرجال دليرتي حبيبي مالي أنا سيحنين قورتي صوح الشيء تطور الجلب عيل مكايل كتر سنة سلطان كصوح الشيء dhammaantiin waxaan idin leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin kudayaashaad mudantiin waa inay beelaha kala soo ugu daydaan haanta gunta laga soo tala Sooma mar haddii halkan laga dhisay Cali Makaahil beelaha kala ay ku daydaan oo loo dhiso waxay iman doontaa in ay yimaadaan madal dhaqameed oo fiican oo wax walba xalinaysa sanadahan ugu dambeeyay goorta dhaqanka ama wada dhaqameedka deegaanku waxyaabo aad u qurux badan oo lagu diirsado oo ay qabanayeen baa jirta oo ay kamid ahaayeen dawladdu way baabaaday August 4 waxa la leeyahay wixii jiray oo dhan u burburay nabadaynta deegaanka oo ay ka soo bilaabantay caasimadda deegaanka odayaal dhaqameedkan hor fadhiyo garaad kulmiye hogaaminayay waxay ahaayeen magaalada si loo dejiyo deegaanka si loo dejiyo habeen iyo maalinba dadkii u taagnaa ee ummadda la hadlayay ee shacabka la hadlayay maanta halkaan joogniyo madasha aynu nabadda ku joogno inay timaado qayb wax ka soo qaatay maanta waxa weeyaan suldaan filfil daahir Saciid suldaanka guud ee beelweynta Cali Makaahil oo ah suldaan Soomaaliyeed waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad ka mid noqoto odayaasha sharafta leh oo dhaqameedka sharafta leh ee deegaanka ka soo qaadanayay nabadeyntiisa walaalayntiisa isjeclaysiintiisa ee intay deegaankeena dhaafeen deegaamada kale jaarka nabadeynteeda qayb wax ka qaatay oo ogtiin maanta Soomaaliya Oromo isku talaabi jirin inay sharafta maanta timid ay tahay inay marka Soomaali baan ay tiraahdo ee Oromiga kale dhex joogto in kor lagu qaado cid walba laga soo dhaweysto dadaalka inta leeg cid gelisay waa odayaal dhaqameedka suldaankeena aan maanta caleema saarayno suldaan filfil waxaan filaynaa inuu odayaasha ka mid noqdo oo qayb libaax la ka qaadan doono isku soo dhaweynta Soomaalida isjeclaysiinta Soomaalida Dambalna وحوي حرنتي وضع نوراشها وحرنتي وحويان استعيلك سلان كور قونو وحياة وحيرد
عربي لبس دام بس خلاف صوم سكدا wax kale khilaaf meel walba u jira kuwa dhexda u jira kuwa gudaha u jira laba beelood oo jira laakiin waxa soo dhan wax macno leh keenay ma jireen inta wax laga barto un baa wanaag laga sii qaada ilaa hadda inta anigu aqliyeystay jiray wali mudooyinka dambe ahayd dadka dambeed wadada ku naqaano wada noolaasho iyo sicay maanta mar haday suldaankii labada suldaani aftiga isku hakaan cali masaaran iyo kii hore u sii jirayba ay maanta inala joogaan oo isku ducaynayaan waxaan filayaa in aanay dambal hadal dambe iyo guux dambe u leeyahay dadkoo gacmaha soo haysta soo dhaqanayna macafin ku fadhido marka xigta madashani ma aha mid siyaasadeed oo boos badan inooga bannaan yahay balse waxaan u soo kacay oo keliya in aan hambalyeeyo una duceeyo suldaanka beesha Cali Makaahil suldaan Filfil Daahir Siciid waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo. Assalaamu alaykum dambal eega horta aan dambal igu horeysa waxaan u haystay laba burood isu dhow dhexdooda inay ku jirto meel fiican horta magaalada degan tahay dambal inaan imaado waan jeclaa suldaanka maanta Cali Masaarkiisu joogo dawladda iyaan horeysiinaa iyo madaxda dhaqanka suldaanka Cali Masaarkiisu joogo garaadka Soomaaliyeed garaad kulmiye garaad salaadiinta la socotay magacooda waa aqaaniga raadahada iyo madax dhaqameedka deegaankeena meesha jooga dhamaantiin waan salaamayaa madaxda dawladda iyana waan salaamayna soo sidaa ma madax dhaqameedka horta aan ku horeeyo suldaan Filfil Daahir Siciid ilaahay ha ku guuleeyo xilkiisa suldaan Soomaaliyeed oo wadani ah oo gobonimo doona oo Soomaaliya oo midnimo iyo cadaalad ku shaqeeya ilaahay ka dhigo ugu dambeyntiina suldaanka oo halkaasi lagu calashubay isla markaasina ay lagu saaray go'a ayaa waxa uu hadal u jeediyay ugu dambeyntiina dadkan aw matalayo iyo sidoo kale bilweynta Cali Makaahil iyaga oo guud ahaan ba halkaasi looga duceeyay isaguna ka duceeyay halkaasina gacmaha kor loo wada taagay inuu Ilaahay ku asturo xilka suldaanka سيدنا محمد marka hore waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay Raxmaanka inuu waafajiyo xaaladan wanaagsan ee ku kulanay indanaha Soomaaliya dhammaan kaga wada hadlayno anna la igu caleemo saarayo Ilaahay arintaas keenay ayaan u mahadnaqaynaa dawlad deegaanka dhammaan nimba masab ku doonaa ku socdo dawlad deegaankiina u mahadnaqaya dhammaantii kuwa federaalka socdaan u mahadnaqaynaa kuwa gobolka waan u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta heer degmo waan u mahadnaqaynaa dhammaantood afarta degmo ka socota waxaan u mahadnaqayaa dhaqanka duqayda dhaqanka garaad kulmiye kow ka yahay iyo inta kale hoos timaadeen waxaan ugu dambeeyay ayaan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa oo kale dhammaan bulsho sharafta halkan fadhida nimba magacu doonaha ku yimaadeen anigoo afka Cali Makaahil ku hadlaya waan u mahadnaqaynaa kulli aniga maanta waa la caleemo saaraya hadalkaygu waxa weeyaan u ballanqaad iyo duco iyo wixii la yidhi yeelo waxaan leeyahay الله يفوض حلكا لا يدمضي إلهي إنه يفوضي ديان إله الرحمن كبريا وينضل كي ضد كان إلهي يقوم فعو. إذن كان واحد يقول عينيا لما أنت واحد يقول عينيا سيدا نغفر حسين الوقت ين نغص صورتين إن إلهي إذن كفر حيا لما أنت با. إلهي إذن كيسا وحان إلهي كبريا إذن كن إلهي هذه كبريدين إن أنقرب كميدو كل شقيون كبيح نقولين. waxaan ka ballan qaadayaa goortana soo xuratay beesha Cali Makaahil inaan dhaqan wanaagsan iyo karaamo iyo tashaawur fil amri aan uga shaqeyn doono waa Cabdi Xamiid aw Maxamed wararka telefishinka Gobonimo TV magaalada Dambal ee xarunta degmada Dambal ee ka tirsan gobolka City dawladda deegaanka Soomaalida